beesha cawramale oo kamida beelaha Dago deegaanada Jubaland iyo qaybo kamida dalka Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareeyay falkii 28 bishan lagula kacay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Dowladda Federalka ee Soomaaliya Maxamed Cumar Geedi oo sida ay beeshu sheegtay xilli habeenimo ay ciidamada dawladda Soomaaliya u dhaceen hoygii uu ka deganaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isla markaasina sida ay sheegeen ay kula kaceen handadaad baaritaano iyo waxyaabo aan ku wanaagsanayn in lagula kaco mas'uul xil ka soo qabtay qaranka Soomaaliya iyagoo sidoo kale sheegay in ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen Dowladda Federalka ee Soomaaliya odayaal waxgarad culimo diin aqoon-yahano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee beesha oo maanta ay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa muujiyay sida ay ugu xun yihiin falkaasi waxaana ay Dowladda Federalka ee Soomaaliya ugu baaqeen kana codsadeen in dadkii ka dambeeyay falkaasi la horkeeno cadaaladda qodobka 19aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah xormada hoyga meesha uu qofku u degan yahay farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay qofka gurigiisa ama meeshii kale ee isaga u gaarka ah lama gali karo lama baari karo lama basaasi karo amar garsooro oo sababaysan la'aantiis farqadiisa labaad wuxuu leeyahay waxa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah looga akhriyo deganaha hoyga baaraha waxa ka reeban ku xadgudubka sharciga qodobka 20aad dastuurka ku-meel gaarka ah xorriyadda kulanka banaanbaxa cabashada iyo codsi wadareedka farqadiisa koowaad waxa dastuurka ku qoran qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbaxyo oo si xasilooni ah u dhaco goortii ay ka xayuubsadeen way u diideen xildhibaannimadii oo ay u diideen wasiirnimadii habeenkii damana inay askar inna duuban u soo diraan gurigiisa ay 7 saac habeenimo ugu soo dhacaan oo muwaadinka Soomaaliga xataa loo quuri waayay jaga iska badaaya inuu Muqdisho ku noolaado loo quuri waayay waa ka xunahay mana qaadanayna mana qaadan doono beesha cawr maladaana marka maxay yeelay nin walba haruunku wuxuu ku lisaa loo lisaa ay Soomaalidu ku maamaadaa halkan isku imaanay maanta wasiirkeena hore sameeyay xadgudub oo ah in habeenimo gurigiisa lagu weeraro asagoo wax xuduud aan loo marin nabadoon barra Salaad Axmed Suldaan Saalax Macalin iyo gudoomiyihii hore ee degmada Kismaayo Maxamed Nuur Xasan Gacma dheere oo madasha ka hadlay ayaa sheegay qofka muwaadinka hadduu xaqiiqdiisa asaasiga ay waayo waa caba karaa maxay yeelay arintaas waxay u egtahay waa ku gooracaha harrafarin markuu hadlay waxaa noo soo gaartay in gurigiisa loo dhacay baaritaan lagu sameeyay baaritaankaas aan sharci loo soo marin aan si aan munaasab ahayn oo nin mas'uul oo siyaasi ah si loola dhaqmo aan ahayn loola dhaqmay middaa waa ka xugnahay maseedka aan u dirayna wuxuu yahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dadka waxa uu dhimina dadka uu dhibriya caga juglaynta daaya cadaadinta daaya qof tooxsiga daaya Soomaaliya maanta waa maraduug ninkeeda toltasho haddaad iga yeeli waysaagna beesha maanta halkaan fadhido ee reer Cormala kaliya cabashada iyo hadalka kuma ekaan doontee Soomaali badan baa caba doonta markay Soomaali badan cabatana maalin adad meelad wax ka qabataan ay leeyahay baad ka shalay doontaa arinta aad iyo aad baan ugu xunnahay waxaan codsanaynaa cidii ay khusayso dadka xadgudubka geystay in sharciga la horkeeyo ama cadaaladda la horkeeno waayo wasiirka xushmad buu leeyahay dalkiisu joogaa wax abaabul ama wax falama ama wax dhibaato oo markaas dawladda meesha ka jirta xukuumadda meesha ka jirta ama dhibaato ku wadiyo aan ognahay ma jirto ilaa haddana wax lagu soo eediyo aan ognahay ma jirto marka qof mas'uul ah in la saga xadgudba oo la dhibaateeya sharciga ma ogola waxaan u sheegaynaa Dowladda Federalka arrinkaas foosh xun oo ciidamada ay sameeyeen inay ka jawaabto oo wasiirka dadka uu ka soo jeedo arrinkaas ay ka qanciso waxaan ku hadlayaa magaca siyaasiyiinta
wasiirka beesha oo ka soo jeedo ayaan ku hadlayaa aad iyo aad baan ugu xunnahay la'aan iyo xadgudub maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo